barsaabka saaxil maxamuud cali salabaan iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil maxamuud xaj cali ayaa si wada jir ah u qaabilay haween ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland ee dalkaasi Ingiriiska kuwaas oo u socday inay wax badan ka ogaadaan heerka waxbarasho ee ardayda iskuulada dhigata iyo waliba wixii laga caawin karo ee waxbarasho ahaan in ay ogaadaan hablahan oo ay ka mid ahaayeen Seenib maxamuud Dhoolyare Amar Cismaan Dhoolyare iyo waliba Yaasmin Yuusuf waxaana warbixin buuxda ka siiyay xaaladda waxbarasho iyo baahiyaha jiraba isduwaha waxbarashada iyo barsaabka saaxil sidoo kalena xogayaha dawladda hoose ee magaalada Berbera Ali Maxamed Cilmi ayaa isla saaka ku wareejiyay xafiiska waxbarashada ee gobolka saaxil gaari cusub oo nooca loo yaqaano nooha ah halkaas oo ay goobjoog ku ahaayeen barsaabka iyo waliba martidii qurba joog ahayd maanta oo ay bishu tahay 23kii bishii 8aad waxaan halkan adaan nahay dawladda hoose Berbera aan ku wareejinay gaari aan u iibinay wasaaradda waxbarashada saaxil doon fureen ku wareejino anagoo marka hore ka dawladda hoose ahaa qayb wax ka qaadana haday nalka tahay haday macallimiinta tahay iyo haday tahay biyaha aan dawladda hoose ay saareen oo ay bixiyaan ياسين جامع علي حلونا جيوس بربرة